waxaa diyaarad wada saarnaa madaxweynayaasha Mareykanka, Ruushka iyo Soomaaliya. Madaxweyne kasta wuxuu sheegay in uu joogo wadankiisa markii ay diyaaradda dulmaraysay hawada sare. Waxaa la weydiiyay sida ay ku kala garteen wadamadoodii. Madaxweynaha Mareykanka ayaa yiri, anigu waxaan gacanta ka bixiyay daaqadda diyaaradda, markaasi ayaan taabtay daaradihii dhaadheera New York. Sidaasi ayaan ku gartay in aan joogo Mareykanka. Madaxweynaha Ruushka ayaa dhankiisa sii qaatay isna hadalka, anigu marka aan gacanta daaqadda ka bixiyay waxaan dareemay qabowga Moscow, sida ayaan ku gartay in aan joogo Ruushka. Hadal dheer kadib, labada madaxweyne markay dhameysteen Ruushka iyo Mareykanka, waxaa soo boodi kan Soomaaliga. Asigana wuxuu yiri, aniga markaan gacanta ka bixiyay daaqadda waxaa layga furtay saacadii aan watay, sida ayaan ku gartay in aan joogo wadankayga Soomaaliya. Qosol badana. Fadlan muuqaalkan haddaad ka heshay, like inoo saar, YouTube ka subscribe inoo saar, page kana follow dheh si aan u helno saaxiibo badan. Haddaad ka heshana commentiga nagula wadaag si aan u soo badino muuqaaladan oo kale. Mahadsanid.